golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maalnimadii shalay muddo 2 sano ah u kordhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaguna shaambadda ku dhufsadeen muddo 5 sanadood ah. Haddaba waxaan saaka mikrofoonka Horyaal TV la dhex qaaday bulshooyinka ku dhaqan degmada Ceelaf Weyn iyagoo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay muddo kordhinta loo kordhiyay madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi. Bulshada oo amurahaasi ka hadlaysa ayaa waxaadaladoodii ka mid ahaa taa shalay golaha guurtidu ay ku dhawaaqeen ee soo saareen waxaan u aragnaa sharci darro muddo kordhinta 2 sano ah dalkuna ma qaadi karo waana sharci darro yaad saaka uga xunnahay una cambaaraynayna kordhinta muddo kordhinta loo sameeyay ee 2 sano ah iyo anigu guurta oranmaayo guri shaydaankan dalka waxa laale waxay u tarayanaani jireen maalin walba wax iska oranaya dalka baabiisa iyo burburkiisa u taagan ee guurta ku sheega anigu shaydaan baas leeyahay guriga shaydaanka leeyahay muddo kordhintaana waanu ka soo horjeednaa mana raacsanin mana diyaarsanin mana doonino waayo 2 sano mugdi oo 5 sano mugdi aanu ka soo qaadanay Muuse yeeli mayna 2 sano mugdi oo damana inaan Muuse ka qaadano ma yeelayno mana doonayno waanu ka soo horjeednaa guurtidana waxaanu leenahay guri shaydaan baati baliyo uga diraya golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland muddo kordhinta uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo sharcigii dalka aad iyo aad buu soo dhaweeyay golaha guurtida oo gudoomiye u yahay Salmaan Maxamuud Aadan aad buu soo dhaweeyay waxaan soo dhaweynayaa muddo kordhinta ay samaysay golaha guurtida aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waana ku mahadsan yihiin iyagoo ah mustambeedkii dalka waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan waa arrin adag dalkuna ma qaadi karo dalku 5 sano guntigiis ku jiray oo ay ahayd dadku uu halis ku jiray oo dalku hoos sii socday oo dadku uu noqday barakacayaal isu bedelay oo adduunka oo dhan laga soo xidhay haddana maanta 2 sano lagu sii daro waa cambaarayna xaqiiqatan arrinta waa cambaarayna horjeeda muddo kororsigana labada nooc ta madaxweynaha 2 sano uu kororsaday waxaan yeelino ma jirto mudane madaxweyne dalka maamul xaq baad u leedahay muddo inaad maamusho muddadaadu way ka dhamaatay walaalahaaga muslimka inay dalka hogaamiyaan oo ogolo oo iska dhib oo 2 sano ka daawa dulmiye odayada guurtidana waxa leeyahay waxa tiin hogaankii dalka ugu weynaa madaxweynaha idinka ka sareeya maanta halka cadaalad ku maamul lahaydeen oo xisbiyadiina kale wax u hanbay lahaydeen oo walaalihiina kale soo dhaweey lahaydeen ayaa maanta waxa tiraahdeen anana 5 sano aan kordhisnay madaxweynaha 2 sano ugu darnay cadaalad ma jirto mana yeeli doono inayna waa taadi waan ka soo horjeednaa mareen dunida abaar xun ba ka dhacay dagaalaha halisa ka dhacay dunidii waa handaraabantahay waqti muddo loo kordhiyay 5 sanadood baan la yaabanay Muuse sidoo joogay maanta marka anagu kamaan fadhiin guurtuduna cadaalad daray ku xukuntay dalkii waa kala xanibayeen madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne intaasan dirqiyo tubaas ku joognay uma naqalantid mar labaad 2 sanadood uma qalantin arinkana dib ha loogu noqdo baan leeyahay waanu ka soo horjeednaa mana doonayno mana rabno madaxweyne la doonayo shacabku rabo dadkiisu raba oo wajile ayaa dib loogu doortaa oo 2 sano iyo 5 sano dambe loogu dara madaxweynahani wajigiisii uu laastay 1 year sanad kale uu ku soo gabagabeeyay xaaladiisii idina ma rabto annagu haddaan reer sanaagnahay ma doonayno mana rabno mana arki karno 2 sanaad ka sheekeynaysaa wallahi hal habeen baba nagu dhiba Muuse Biixi wuxuu noo geystay golaha guurtida cod madow ku riday Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda sheegaynay kamayna tareen maslaxadii dadka iyo ummadda waxa ka taliyay maslaxadda odayaasha iyo maslaxadooda ka taliyeen barka xumalanaya meel dheer ba laga dooni doonaa Soomaaliland maanta si lagu wado insha Allah waxa ka warsugi doonaa xisbiyada mucaaradka waxay nagu jiheeyaan iyo sidoo kale soo sheegay musharax Ciro 16 November waxa ka dambeeya Muuse Biixi ma aqoonsanin madaxweyne kursigaas qof walba meesha joogo isaga xukumanaya sida hawgaad madaxweynuhuna iyo cid kale Salmaanna waxa leeyahay adeer maanta talo wanaagsan kole ma qaadan malaadiga ay kula fiicnayday insha Allah waxa weeyaan warwayga doona xalay ku dambeysay Soomaaliland kordhinta ay golaha guurtidu sameeyeen xal bay ahayd muran siyaasi ah oo khilaaf fara badan reebay oo haddii alla ka dhigo mudaharaadyo iyo rabshadiisa iyo dhibaatadiisa lahaabay soo afjareen
waa ku mahadsan yihiin in madaxweynaha 2 sano loo kordhiyana anigu waan taageersanahay fikir ahaan waanu ugu hambalyeeynaa waanu ku soo dhaweynaynaa wayna ku saxan yihiin sababtu tahay dee xilliba waanu hadhin marka xaaladdaa deeq la qabsatay golaha guurtiguna wuu ku mahadsan yahay waa soo dhaweynaynaa waa hambalyeeynaa madaxweyne dalku fawdo uma baahna mustaqbal iyo horumar iyo madax buu u baahan yahay cid kastaaba ha qaadato waxaan leeyahay anigu arrintimi weeye muddo kordhinta sharci darrada ah ee ka dhacday Soomaaliland maanta muddo kordhin inuu sameeyo Saleemaan looguma fadhiin Saleemaan isaga tiisu ka tashay kala kama talin marka waxaan leenahay Saleemaan teeda og aakhirana halkaad galayso iftiinkana waji kuma yeel aakhirana waji kuma yeel kordhinta 2 sano waxaanu aragnaa si fakhaldan madaxweynuhu hadduu dhameystay waqtigiisa waxa weeye anagu isbedel baanu doonaynaa isbedel baanu rabnaa iyo in wax noo soo kordhaan reer bari baanu noo madaxiba horta nama soo gaadho marka iyaga horeba yelkadeeda cadaalad baanu rabnaa iyo isbedel maadaama shacabkii xisbiyada ma ilaa ilaga sameeyo aan xisbiga sameeysan madaxweyne 4 iyo 3 iyo 6 basi korso intaan xisbiyada ka gaarayno eelaadiyo ummadii waa iscuntay 5 sano oo ninkaasi haystay maanta haddana ummadii in la yaahdo 2 sano oo dambe oo maxay tahay ninka xukuumadda maxay tahay guracan in dib loogu celiyaa waa 2 sano oo madow maxay tahay waa maxamuud ismaaciil maawel maxamuud abaadir Horyal 24 TV degmada Ceelaf Weyn